asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba aad dunida dacalada ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii qosol iyo qaraaxo. sheekada u horeysa barnaamijka waxa weeye hadda ka hor nin ayaa naagtiisi dilayay. markaasaa waxaa kusoo baxay nin dariskood ahaa. markaasuu yidhi war maxaad naagta u dilaysaa maad ila gursatid. naagti intay soo booda ku teh xabibi nacaskan warkiisa iska daaya igu wad usha. sheekada labaad, xariif deen lagu lahaa ayaa ninkii deynta ku lahaa qabtay. deynteedii ayaa la dhacay. isna midi ayuu la soo baxay waana isgeshay uuna dhintay. kii deynta ku lahaa mididii ayuu soo qabtay isagana uu isgeshay. kulaha aakhiro xataa igama fikinaysid. xariif meesha taagnaa oo la yaabana ayaa mididii soo qabtay isagana kuma laho. sheekada meesha ku dhammaanaysa ayaa soo arkaya. mididii ayuuna isgeshay isna. sheekada saddexaad, mid cabtooy ahaa ayaa musqul galay wuxuuna banaanka dhigtay jaad. markuu musqusha ka soo baxay ayuu waayay jaadkiisii. wuxuu dhahay aawo jaadkaygii. markaasaa la yidhi jaadkaadi ribaa kaa cuntay. kulahaa wejigeedii ma taqaanin adeer. sheekada afraad, nin reer mudug ah ayaa masaajid soo galay iyadoo salaad loo safanayo. kadibna waxaa lagu yidhi safka banaan buuxi si uusan shaydaanku usoo gelin. inta uu yaaya buu yidhi war hadduu tukanayo maad iska daysaan shaydaanku. sheekada shanaad, nin reer muduga wuxuu maqlay islaam foorxun baa magaalada timid. qofkii ku yidhaahdo waa qurux badan tahay lacag siinaysa. markaasuu gurigeeda tegay albaabkii buu ku qarqaraacay. markay ka furtay buu intuu saa u eegay buu wuxuu yidhi iska soo xir albaabka ilaah baa risqi bixiye. sheekada lixaad, oday waalan ayaa hadda ka hor riyo lagu siiyey alaab tiro badan. subaxdii ayuu kacay mise waxba ma haysto. intuu booday ayuu walaalkii oo la hurday intuu kiciyey buu yidhi alaab baa riyada ugu imid iisoo qaadadaa hurde. sheekada toddobaad, nin ayaa xaaskiisii dhimatay. meydka oo qabriga loo sii wado ayaa waxaan quslay ninkii. markaasaa la weydiiyey war maxaa ku quslaysaa. markaasuu yidhi waa maalinkii u horeysay oo aan ogaaday xaaskii meesha u socoto. sheekada sideedaad, oday reer muduga ayaa had kor wuxuu maqlay sheekh ku muxaadiranaya maalinta qiyaame waa laisku imaan doonaa oo waa la kulmi doonaa xitaa ummadii inoo horeeyey. odayga intuu yaaba ayuu yidhi ayaa makhaayad ka hor furtay meeshaas uu taajiri lahaa. sheekada sagaalaad, nin reer muduga ayaa reer dariskiisa ah oo qof ka dhinta usoo tacsiyeynayay. kadib markii uu guriga tacsida kasoo bixi rabay ayuu arkay islaan waayeel ah oo sariir saaran. markaasuu intuu dib ugu soo laabtay reerihii ku yidhi ma soo noqon karee tanna hadday dhimato allah naxariisto. sheekada tobnaad, nin reer muduga ayaa xanuunsaday kadib dakhtar ayuu tegay. baaritaan kadib dakhtarkii ayaa ku yidhi sonkor baa lagaa helay, soogna waa jiraa, gaasna waa qabtaa, milixna way jirtaa. ninkii intuu madaxa kursaday buu yidhi dictor inaad dukaan noqday aniga waa is dareemay.